سلام كدب آديات بعدكم مهندقينا أجيبتها سو أجيبتين عود سجاني سو قد بني هاينا عود سجاني سو قد بني سكولي بعضنا arrimo badan oo dariiheena aan ka wada hadalno nin kasto hadlayna runtii si wanaagsan ayuu hadlay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ajiibida soo ajiibteen iyo waqtiga soo ilaaliyeen inta ma ka gudbo sida madaxdii ugu horeysay ni sheegtay waxaan maanta u soconay maanta ku noomaha waxaan maanta u soconay gobolkii Awdal gaar ahaan degmadii Boorama markay gashay arrin nabadgelyo darro ah oo sida la sheegay ambaar inagu wada dhamaanteen haday degmo tahay haday gobol tahay iyo haday qaran tahayba in badanna madaxayga soo horeysay soo imaatay oo wasiirre iyo cid walba leh iyo janaal bale inaga soo horeeyeen oo muddo 2 bilood ku dhow la soo noqonayay laakiin hawsha si tartay oo si fidfiday hadalla runtii aad la qaadan kari waayay oo qaranka ambaar ku ah ay soo baxbixeen waxay noqotay in labadeeda gobolka u sareeyeen soo baxno xukuumaddu runtii hawshaasi waxay noqotay waxay qaadan weyday waxa runtii ay u dul qaadan kari weyday bay noqotay heer waxay la gaaray in la isku yimaado madaxtooyadii iyo labadii gol qaran iyo maxkamadii sare oo leeyahay wax meesha ka soo socday wax ka weynay balay hor la qabtay ilaa daba la qabto ma lehe hor waxaan waa maxay meesha ka soo baxaya magaaladii Boorama ama gobolka Awdal runtii waxa noqotay markaan anagu labadii geed bursaaka gobolka ugu sareeyay anagu gurmad baan hortanahay gurmadkaana waxa weeyaan waxaan u gurmanaynaa dadkayga binaadamka haday talada ka xumaato meel xun ku dhaca haday tabasho iyo wax maqan iyo waynu wada joognay waynu ka wada hadalno wayna kala hadhin waqtiga la qoran badana wax dhamaadaan laakiin muhiimaddu waxa la isweydiinayaa ma xisaabtamaysan reer Awdal oo ma xisaabtatay ama reer Booramo waxaad maanta haysaan iyo koobka biyaha inta ku jirtay halka maraysa inay inta yar dhiman loo daadiyo intii ka badnayd 80% ka nimcada la hayo ma xisaabtateen waxaad garateen inaad 80% ka haysiin 10 ama 20 dhiman u daadisaan taasi waxay noqotay mid aan ka fadhi kari weynay mid ay ka aqbalaynana maaha nabadgelyadana la idin kama marti ahaa xukuumadda ayaa ka masuula marti idin kama nin taas laakiin talay muskuleenahay sida wax wanaajinaa muskuleenahay waa inta wanaag ka talnaysa laakiin xukuumadda ka masuula nabadgelyada oday reer u taliyo masuuli isaga sidii reerkiisu ku hagaag yaqaan xukuumadda iyo qarankuna isaga yaqaan sidii reer ku hagaag wadanka gobolka iyo degmada ku hagayaan la idinka aqbali maayo idinka yeeli mayno inaan halka jooga yaa soo la soo hadi kari weynay ama se kacay kari weynay ama aan qaban kari weynay wax la idinka yeelay maaha lacagna ku bixin mayno ninka hawshiisa qabsan kari waayay lacag la ku siin mayno bari baa lacag la geeyaa nasiib darro ku hada saadintu masiiba loo geeyaa masiibada ilaahay baryada dad masiiba jeceshiin masiiba qaytana siyaaleed boqolaal qof baa isdila dhibaato taala ma dhibaato loo geeyaa ma dhibaato ilaahay noo keenay leedii war ilaahay ka baqa waxa weeyaan waxaasi wax la suuraysan karo ama la aqbali karo ma waxa bari la geeyay ee lagu shubaay waa wax danta Soomaaliland ka maarmeyday oo madaxweyne kasto jooga ku qasbanaaday oo qarab ku qasbanaaday ilaa cigaal ilaa rayaale ilaa siiraye ilaa musabix waa wax danay biday wax la jecel yahay ma haday maanta sideena u dagaan waxa cidi kuma shubteen lacag cid la ku dhacayso amnigu ku dhamaanaysa oo waliba horumar u taray
inankoodii baa maanta habsaamay ilmahoogii baa inankeetooda habsaamay nabadgelyo darre ku habsaameen siyaasado kale ku habsaameen waxay ku habsaameen laba darraaco bay ku habsaameen intay Soomaaliya intay lahayn boolaalay ku habsaameen war uga ducaynayna iyagoo dhibaato haysta waa dhibta hore markuu gaan leeyahay war reer awdaadanahay waxa maanta ku dhisanay wixii resource ay keenaysa hay'ada caalamiga keenayeen wuxuu ku horeeyaa galbeed ku horeeyay haday iskuul tahay haday caafimaad tahay haday biyo tahay ilaa tuulooyinkiina ama biyo tooshka laga beeranaya war ma sida doonaysa idinka dhibaato tahay ugu biyo xawaa dilaan shalay soo xifray waxa la soo furay boon waxa la soo furay xariirad waxa leeyahay tuulaad gobolka awdal jiray meel aan biyo lahayn maanta biyo nadiif laga cadbeeyo ma jiro laydinama qabadee laydinama qabo waxa weeyaan arinta nabadgelyada idinka bari maayo wixii taliya tusaalana waa laga qaadanayaa odayaasha maanta runtii deegaanka maartay degmada Buuro kamida qaybta bariga iyaga aad iyo aad baan runtii hambalyeynaya anaga warwarkanahay waxa yahay markaan soo soconay laba mid waxay dagaalka inay nabad qaataan iyo saacada boqolka qof ee konton qof meel jooga qarankan maanta iska bixi karo qarankani afar iskaashi wala dumi kari waaye oo adogeedeen oo yab house laba sano jiray iyo shan iskaashi maanta cid iska xili kartaa ma jirto wala dhowraya dadkiisa dhimasho iyo dhiig baa laga wareegaya hadaad maqasheen ilaa iyo bari ilaa caare ma hadda qoniimo naga ma wax ka naga tahay dadkiina iyo dhibku ku dheeraanay halkana boqol qof oo buur yar hor fadhiistay naguma qaadanayso sikiina naguma qaadanayso laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qofka binaadamku shaydaanka wax kala sawira haday walaalahood caruurteena qaarkood ama odaysheena qaarkood si xun u fikireen intii ka badnayd baa tiri waxaan macquul ma aha oo qabatay waana ku hambaliyay Sultaan Saleeman iyo odayaashii iyo odayaal wixii ka inay kala dawladda kala badbaadiyay dadkooda kala badbaadiyeen laakiin dawladdu nabadaada horta la sheego inaad fahamtaan weeyaan nabaddu baryo kuma timaado hadii walaalku galin badiyo nabaddu ima weydo waxay ku imanaysaa xoog ku imanaysaa nabaddu adduunyada waxa loo sameystay waxa adduunyada kharash loo geliyo ciidan loo geliyaa nabaddu markay ka fursan weydo wanaag iyo talada iyo tasliixda la badiyo iyo wadahaalka hadday dhaaf weydo khatar ninku hadda uu gaaro markuu is gaaro inuu cunaha iska xidho xariga waa gacanta loo tagaya marka waxa leeyahay duqeyda galbeedka waxa weeyaan wixii macquul lama diidayo laakiin waxa idinka laga rabaa markaad hawsha dhameysaan idinkiina soo qabsataan waxaad rabtiin weydiiyanaga laakiin adoo inaka anagu nahay ee la sharfiyay ee tolku sharfiyay ee maartay wixii sida la sheegay على مساركيسي شرفتيسي أنا مدحوين قرنا كي شرفية كوها ما أنت هذا كسر دقي إمامة ضيع كوفية تصاص عنها وحس ده لو شرفية وينا قرمري وهذا بيدين مركي ورا مكي وصور دواتي عروتي كسر حراتي إنه كادي دي إنه عفيس كقاطو ضد كيس كسر نقول سلطان يعقاش كلامه وحلاها توقف كبنادك hadduu soo taago qof madaxa waa si goynaa adu kama qaban kartid hadduu isagu soo taago oo qofku wanaagii diido de waxay tagaysaa in laga badbaadiyo inta kale laga badbaadiyo 300 kun oo buuramaan ka dhageysan meeyna in maarteen lagu dul goolaftamo oo nabadgelyo laga abuuro oo dadka hadii in naloo tahay iyo hadii in wax noo tiraso hay'ada tahayba in ka dareeraan aqbal meeno mana rumaysan isuguna meeno waxbaynu wada leenahay isku dambaan nahay doontan iyo maarteen Soomaaliland iyo gobolka wadana wada leenahay nabadgelyaduna waa sala sheegano tafaasiisheeda iyo qiimaha ay leedahay iyo maanta horumarka inoo soo socda wax dhameeyay gudoomiye ku xigay inay warway laakiin waxa ay sheegayaan kala wasiirada wax laga baasgareeyay odayaalo waad ka yar idinku ma dhaqanka waxaad moodaa dhaqanka Soomaaliya dhamaantii waad yar dhaafteen intii aad lahaydeen gaar ahaan salaadiinta ma uqaash gaar ahaan salaadiinta Soomaaliland xadka ilaahay way dhaafeen dulqaadashada ma loo dulqaaday nin dambe oo qaranka purification ka sameeya qofka waxa loo ogol yahay inuu qaranka
wixii toosina u tilmaamo inuu maartay soo xitaa inkastoo dee dhaqankuunu mucaaradda dee xisbiyada ku shuqul lahayn haddana hadduu wax qalooco arkayo toosiinba lagu leeyahay laakiinse lagama aqbale maanta laga bilaabo ninankaa soo joogsada oo fidmo abuur iyo afqabyaaladeed iyo waa dagaalamaya haddama idhaahdo lagama aqbalayo imikaba inaan isku soo warwareegin ninkii maanta afka qaadaya iyo hurin iyo colaad afkaa kaga hadlay afka hadlamaha gacan dowladdu go'aan bay ka qaatay bariya galbeed bishanaa joogo bariya galbeed waxa weeye sababtoo ah xadkaan ku soconnay dee waxaan nabadii iyo wixii Soomaaliland lagu majeeranayay afkeennii baa dawlad mooday inuu wax ka fogeeyay saa darteed maanta looma dul qaadanayo walaa wariye walaa madax dhaqameed cidii dhaafsan xuduud soo dhaafta looma dul qaadan laakiin qofku waxa loo ogol yahay tilmaam iyo talo iyo tusaale loo bixiyo laakiin waan dagaalamayaa dambe ya saxaafadana waa wada hor joogtaan aruur soo koraysa tii wax laga rabay dadkana inaad inta wanaagsan faafisaan laakiin say inta xun iyo kicinta wadanka aad kicinaysaan ayay ka aqbali maayo waxaan soo gabagabeynayaa waxaanu gacmaha isku qabsanaynaa inaan dalkeena iyo dadkeena degmadeena aynu dejinno weeyaan hoosna isku daadegaynaa shiraka waynu badinaynaa kaligiin lamaha aqooyaankii waan la shiraynaa haweenka la shiraynaa dhalinyarta la shiraynaa waxa weeyaan dhageysiga waa dhageysanaa waliba waan dhageysan jirnay intaas sare soo dhageysanay inaan wixii aad tabanayseena marnay nimaanaan odhanin tabashadaas ma jirta maan nidhinta intaa aynu wada joognay sanadkii sagaal bay dhammaadeen madaxweyne ku-xigeen ahaane reer booramo marre aan wadalow weli markii maan nidhi waxba aad sheegaysi waa beentin maan nidhi waxa weeyaan laakiinse waqti buu walba leeyahay dee wixii alla maantuu dhammaadun buu dhammaanaya laakiinse waxa weeyaan waxay naga dhiman waxaan haysanaa ka badan intaan haysanaa inuu ilaashano annagu ka xukuumad ahaan wixii idinka xoog roon ee nabadgelyo xumeynaya dibna maarkaysiine dee gacan bira ku qabanayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii muxuu ahaa mana kala tegayno saad sheegteen la isku dhaadhaco waynu wada joogaynaa ma kala tegayno haddana wala yar joogaynaa 2 iyo 3 ma kala tegayno ilaa aynu gunta taabanayno oo aynu helayno inaynu ku soo celino magaaladeena iyo gobolkeennii wixii lagu yaqaanay nabadiisa lagu yaqaanay ilaa ku soo celino aad